wasiirka wasaaradda dib u dejinta ee Somaliland Salebaan Ciise Axmed Xagla Toosiye iyo wafdi balaadan oo hogaaminayo oo ay ka mid ahaayeen taliyaha guud ee laanta immigrationada Somaliland ayaa galabta dalka dib ugu soo laabtay kadib markii booqasho 8 cisho qaadatay ay ku tageen dalkaasi Finland halkaasi oo ay kulamo kula qaateen wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi waftigan ayaa hadaba waxa si diiran oo meeqam sare leh garoonka diyaaradaha ee magaalada Berbera ugu soo dhaweeyay galabta xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Somaliland Ali Maxamuud Ali Sandulle ahana madaxweyne ku-xigeenkii urur siyaasadeedkii xaqso Fuad Aadan Cadde barsaabada gobolada Maroodijeex Saaxil iyo waliba laascaanood iyo waliba marti sharaf kale oo si weyn wasiirka garoonka diyaaradaha ugu soo dhaweysay hadaba wasiirka dib u dejinta ee Somaliland Salebaan Axmed Ciise Xagla Toosiye ayaa saxaafadda uga warramay kulamadaasi ay la qaateen madaxda dalkaasi Finland waxaan ku maqnaa safar shaqo oo aan ku tagay dalka Kenya iyo Finland martiqaad wasaaradaydu ka heshay baan ku tagnay waxa kamid ah madaxda aan la kulanay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Finland madaxa waaxda socdaalka ee Finland la taliyaha wasaaradda difaaca ee dalka Finland iyo madax kale oo fara badan maan qodobadii aanu ka wada hadalay dawladda Finland aniga iyo waftigii la socday wuxuu ku dhamaaday guul waxaan ku wada hadalay waan isku afgaranay waxaan rajaynayaa safarkaas aniga iyo waftigan hogaaminayay ku tagnay Finland in natiijada ka soo baxday ay tahay mid sii xoojinaysa iskaashiga iyo xiriirka ka dhaxeeya labada dal guulna waa kala soo kulanay wixii aanu ula tagnayna kulli say u dhammayd way naga aqbaleen wasiir waxaad faahfaahin naga siisaa waxyaabaha ka wada hadasheen wasiirka arrimaha gudaha oo kale xabiis oo qodba ka wada hadasheen waxaa baysu ahaa in la xoojiyo ama capacity building la siiyo wasaaradda anigu wasiirka wahay waxaan ka wada hadalnay in la xoojiyo waaxda socdaalka ee Somaliland waxaa ka mid ahayd in booliska Somaliland ay inoo dhisaan waxaan si gaar ah uga codsanay in booliska waxay u qaban karaanba ma rabo inaan details galo intayada booliska la dhiso waxaan ka wada hadalnay wax la yiraahdo AVR assisted voluntary returnees oo qofka xagga jooga Finland jooga ee ikhtiyaarkiisa go'aansada inuu dalka ku soo noqdo in ay iyana soo caawiyaan anana aanu halkan ku soo dhaweyno intaasaan ku wada hadalay dabcanna Salebaan Cali Koore oo kamid ahaa madaxda halkaasi ku sugnayd ee soo dhaweynayay wasiirka dib u dejinta ee Somaliland ayaa aad ugu mahadnaqay dadkii faraha badnaa ee halkaasi sida baaxadda la u soo dhaweeyay wasiirka inaan horta soo dhaweyno annaga u badan deegaanka uu ka soo jeedo wasiirku darajooyin kasta aanu kala lahaano marka waxaanu aad ugu faraxsanahay inaanu aragno wasiirkii ugu mudnaa ee haysta kalsoonida dadka iyo deegaanka uu u yahay wasiirka ama constituency-giisa marka sharaf weyn bay noo tahay inaanu halkan maanta si diiran ugu soo dhaweyno wasiirka wasaaradda dib u dejinta Xagla Toosiye anagoo waqti badan isleh wuxuu wax ka bedeli doonaa sababta aan u taageeraynaa wax kale maaha waxaan isleenahay wuxuu wax ka bedeli doonaa qiyamkii iyo image-kii siyaasadeed ee deegaanka uu ka soo jeedo iyo Somaliland aad iyo aad baad u mahadsan tahay